gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa maanta albaabada u furay riig biyood cusub oo loogu talagalay inuu waraabiyo agoomaha iyo darajada jiifka ku nool xarunta agoomaha ee hay'adda Iwaada ee magaalada Burco. Riiga biyoodkan cusub oo howshiisa la waday muddo haatan kusman bilya badhaya waxa uu waraabin doonaa cisbitaalka Manhal, xarunta agoomaha iyo waliba xaafadda koonfureed ee magaalada Burco oo iyagu aad u soo dhaweeyay riig biyoodkan cusub. mashruuca riig biyoodkan cusub ayaa waxaa maalgelinaysay mashruucani hay'adda wadaniga ah ee Iwaada. mashruuca riig biyoodkan cusub ayaa waxa uu qayb ka yahay mashaariicda bani'aadanimo ee dadka danyarta u qabato hay'adda wadaniga ah ee Iwaado. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan ayaa isagu xariga ka jiray riigani ayaa u mahad celiyay hay'adda Iwaada kulana dardaarmay dadka xaafadaasi inay ilaashadaan riigani. mashaariic badan ayay gobolka ka fulisaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa oo ay ka mid tahay waxbarashadu, oo ay ka mid tahay biyuhu, ay ka mid tahay quudintu, wax badan bay u qabataa. waxaanu leenahay ka sii kordhiya ilaahay khayr ha idin siiyo. xaafaddana waxaanu leenahay ku tabca waxaa la idin soo kordhiyo ilaashada waa idinkaa leh, waa hantigiinii, waa xaafadiinii. gudoomiyaha hay'adda wadaniga ah ee Iwaada Sheekh Aadan Xasan Saciid ayaa isna ka warbixiyay riigan cusub aasaaska riigan, waxaana uu mahadnaq u soo jeediyay dadkii gacanta ka siiyay dhismaha riigani. Sheekh Aadan ayaa xusay in hay'addu ka shaqeyso caawista inta badan dadka danyarta mashaariicda wax qabadna ay halkaasi ka sii wadaan. maanta iyo maalintii la bilaabay waxa ilaa 40 casho ayuu socday, maanta uu soo dhameystirmay. biyihiisii waa idinka wata la arkayo, waa laga cabayaa. ilaahay baa mahadale subxaanahu wa ta'ala. mashaariicda Iwaada ayuu ka mid yahay riigani aan ugu talagalnay wadanka magaranaysaa. waad ogtihiin sanad walba biyo dhaamis ayaa ka dhaca iyo magaranaysaa baahida biyaha oo aad u badan oo khaasatan xaafadan oo biyuhu magaranaysaa baahi badan loogu qabo. marka ilaahay baa magaranaysaa mahadda iskale inuu magaranaysaa ceelkani maanta uu inoo dhameystirmay oo aan furnay. riig biyoodkan cusub ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu wax weyn ka bedeli doono baahida biyood ee ku xayndaabna xaafadahaasi dhinaca koonfureed ee Burco oo ay qayb ka yihiin hospitaalka Manhal iyo xarunta agoomaha ee gacanta ku hayso hay'adda Iwaada. Saqfar Cabdilaahi, Bikada Caalamiga ah ee Burco online, xarunta gobolka Togdheer.